kulan albaabada ugu xiran yahay baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa maanta waxa ay ugu qabteen magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle markii kulanka uu soo dhamaaday ayaa waxa ay la hadleen warbaahinta waxa ayna sheegeen kulanka in ay la hadlayeen qaybtood in ay mooshin ka keenayaan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Cali Cabdullaahi Cosoble waxa ay xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ay sheegeen in mooshinka uu sababay labada degmo uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle xildhibaanada ayaa sidoo kale ay sheegeen in mas'uuliyaddii shacabka ka saarneed in uu iloobay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Cali Cabdullaahi Cosoble waa kuwan ayaga oo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kale ما شاء الله xildhibaanka dareemadu waa boqolkiiba boqol ilaahay baa isku dubaray subhanahu wa ta'ala waxay garteen mas'uuliyadoodii maanta garteen waa midoobeen waxayna u midoobeen danta iyo maslaxada kitaabka ay u dhaarteen oo Allah subhanahu wa ta'ala dartay ugu dhaarteen cidii Hirshabelle hortaagan inay ka wareejiyaan oo sharciga mataqaanaa digsadana go'aan la qaato insha Allah ta'ala waxay ka sabab noqotay xukuumadii aan u dooranay madaxweyne Cali Cabdullaahi oo shaqay weyday oo hawsheedii gabtay u sababa saad ogtahay Hirshabelle waxay jirtaa muddo ku dhow hal sano wax hadda la taabo karo u qabsoomina malaha intaan ka ahayn dikreeta dadeed taasoo noogu soo kordhay in la sii magacaabo dikreeta degmo asal waxa amar ama qaad aan ka taagnayn dikreeta oo qof ama bini'aadan waxa noogu darsoontay dikreeta degmo marka waxaad aragtaan in tadoo degmo laba maalin gudaheeda la magacaabay Hirshabelle hoggaan ayay u baahan tahay xalisna ay ku jirtaa waa dad hoggaanka dalka ahaan jiray iyagoo dalka laga helo hoggaanka dalka ka soo baxan ahaan jiray in maanta dib u dhac intaas leeg muddo sanad ku dhow uu geysto hoggaanka haddeertan haya ayaa sabab u ah in hoggaankaas hadda haya xildhibaanada isugu yimid meeshan ee gaaraya 70 xildhibaan waxay ugu tala galeen waxaana la isla gartay shacab siyaasiyiin haddii ay ahaan lahayd baarlamaanka federaalka ah qayba kaga jira ee Muqdisho kaga soo kulanay in uu yahay xildhibaanka dhammaan xildhibaanada federaalka ah xitaa iyo kuweena Hirshabelle inuu yahay boogta kaliya ee Hirshabelle la hartay inuu yahay hoggaanka madaxweynaha ka ah Cali Cabdullaahi Cosoble umadiina ka reebay asaagiisa asigana iska reebay sidaas daraadeed intuu asigana is ceebeen umadana ceebeen waxaan jeclaan lahayn inuu iscasilo oo isan cabta halkaas gaarin waxaan nooga qorshaysan madaxweyne Cosoble systematically motion isdabayaal ah oo aan marnaba baaqan iyo mucaaradad kaga soo taagan ummadda wax la qari kara aan ahaynin Hirshabelle isbedel in ay u baahan tahay dhibaatay qabaan dhibaatadana waxa wakiil uga bulshada marka isbedel in la helo laga maarmaan waaye Hirshabelle ay hesho marka taas wax la qari kara bayratay maanta waxa waaye qodobada dastuurka awoodda madaxweynaha siinaya kuma qorra wax sharci ah oo u magacaabi karo degmo wax awood ka baxsan oo magacaabi karo golaha wasiirada iyo saraakiil in uu dalacsi karo hatta golaha wasiirada haday u keenaan ka kadib waaye wax awooda oo ay sii hayso dastuurka Hirshabelle madaxweynuhu in uu magacaabo degmo haba yaratay ma jirto idoo ay jirta badii aan ka soo qaadno haddana waxa waaye waxyaabaha uu magacaabay oo ka magacaabay gobolka Hiiraan shabaab ah haysta kuwii hadda anagu aan maxuu ahay gacantayna ku jirana diyaaradaha lagu tago waaya marka ummaddu waxay u dhinto waysaaba oon iyo haraad iyo colaad marka waxaas madaxweynuhu uu sheegay wax ka jira bayraata ma jiraan baarlamaankaana iska arki doona waxyaabaha isugu yimaadeen ka mid tahay xaqiiqatan xildhibaanada Hirshabelle maanta waxay isugu yimaadeen ma aha in dad ataagayaan ama dad ay lid ku yihiin balse waxay isugu yimaadeen in wax la sax la isugu yimid xaqiiqatan taasaan mataqana hadafku yahay waana gaarayna yoolka maxaa annaga conflict abuuri mayn khilaaf abuuri bas waxaan sameeynayna dadku inay isfahmaan xildhibaanada mataqana maxaa u saxan maxaa ka qaldan hadafku ugu weyn taas oo hay xaqiiqatan in badan oo kamidana waa la isla gaaray waxaan rajaynaa saacadaha soo socdo yoolki iyo meeshii loo jeedo in la gaaro insha Allah ta'ala ma aha markii ugu horeysay xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ay qabtaan shir caynkan oo kale ay kaga keenaan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle mooshinkani ayaa ah kii hore mid ka duwan Maxamed Yaasiin Maadi Maxamed Qalfa warbaahinta Jubba Shabeelle News magaalada Jowhar.